iska oohin baa meesha la fadhiistay wuxuu igu dhahay maxaa u ooynaysaa dee anigu mataqaanaa nolol ma samaysan karno isma guursan karno ismaba geynaba wuxuu igu dhahay aabaha lamarkiisa isii oo micnaha aabaha baa rabaa inaan la kulmo isku magaalo ma joogna laakiin waa la hadlayaa wuxuu igu dhahay aduu duhur baan la hadlay wuxuu igu dhahay galabtii oo kale aabaha micnaha kool ii soo saar haye baan ku dhahay waxaa sameeyey adeer baa lamarkiisii baan u qoray marka oday lamarkiisa u qoray xoogaa waa nafisayoo waanan soomanaa maalintaas waxaa dhacday aabbaan wacay waxaan ku yiraahday aabbo arrintaas iyo arrintaas jirta inaan adeer kula hadashiyaa rabaa wiilka adeerkiis galabtii ila soo hadashii buu igu dhahay marka inaan kula hadashiyaa rabaa haye buu igu dhahay meel baa shaqo rabay inaan aado buu igu dhahay aabbo laakiin waa ka joogayaayo adiga dartaa baan uga joogaya waa ku sugayaa galabta haye baan ku dhahay waxa dhacday aduu maray 5 galabnimo ahayd buu aabbi soo wacay markaas waxaan ku yiri wuxuu igu dhahay dadka sheegaysay markaas ku dhahay aabbo kuma soo wixin miyaa cindamay adeerkii baa ku celiyay waxa ku dhahay adeer maxaa buu wacay waa ilaaway micnaha waan ilaaway oo ma wicin isu markii waxaan ku dhahay waayahay wuxuu dhaana wacay isu markii dib ugu soo celiyay wuxuu dhahay adeer mi maqlaysaa anigu qabiil iyo waxa kuguma dacaadeynayo laakiin wiilkaygaan ku rabin wax saas ah asaga wiilkaygaan ku rabin anigana maba kula rababa asna kuma bara waxaas igu dhahay waxa dhacday waxaan ku dhahay adeer baan ku dhahay maxaa way markii sababta aad aalada qabiil iyo waxa igu gelinaysaan maadaama aad leedahay aad kas iyo maag waxaan u sameynaysaan wuxuu igu dhahay waxaas anigu ma kala jeceli waxaad samaysaa gabar yahay iskaga har micnaa wiilkan markaasuu lamarkii ugu jaray waa wacay iga qaban waayey wiilkii baa ku laabtay markaasaa ku yiri maxaa arrintaa ka jira markaas wuxuu igu dhahay arrintaa waxba kama jiraanin adeerna asaga hadalkaas ka dhaxay inuu ku cadeeyo diidan yahay arrinta jirta waxaa dhacday waxaa jirta asag wiilkan wuu igu jeesjeeshay ilinteyda iyo waxaasi muusan arkaynin waxaa dhacday adigu fiideo tiktok igu jiray buu ka saaray anigana waa ka saaray kadib anoo saa tahay oon iska murugeysanahay baa waxaa dhacday aan ka samreyninoo saan kool u wacay blog saaray lambarka kalena intaan ka wacay blog saaray markaas waxaa dhacday wiil baa soo wacay asaga saaxiibkiisa markaas wuxuu igu yiraahday markii way isla socdeen tala yar ma ku siiyaa baay wuu igu dhahay baa ku dhahay waxaa ku diidayaa dad talisiin iwaaninaysid wuxuu ugu dhahay baay maxaa mid baa kuu sheegaya qofka aad saa ugu ooynaysid saa ugu calaacalaysid saa ugu baalkeenaysid wuu faraxsan yahay intuu kaamirada ii furtay buu i tusay wuu faraxsan yahay oo ma garanaysaa dee saas u baashaalayaa magaaladiisaas ku jira kama qasnaba adigana waa murugaysantood dadka dhan waa ka dhexbaxdo guri cilaabaad iska joogtaa baayir mid baa kuu sheegaya walaalkaa baan ahay tala baa ku siinayaa inkastoo aan taladiis ku faa'iiday wuxuu igu dhahay waxaad samaysaa haddoo arka ninka adoo qurux badan adoo karti leh adoo ma garanaysaa dee aanan jileec iyo ilin aadan ma garanaysa aadan tusin oo mar walba aad aragto aad tusto farxadaada inuu dee kaasoo daba ordayo oo anigu hadda waa ogahay buu igu yiraahday qalad uu galay awgiisba hadda kaaga maqan yahay inuu soo laabanaya anaa ku huba intaan samee buu igu dhahay waxaa dhacday waan sameeyey mar walba waxaa tusi jira farxadayda mar walba waxaa tusi jira farxadayda waxaa dhacday habeen intuu boosto ka imaaday uu garow yimaaday waxaan sameeyey hadiyad baa xiray hadiyadii markaa xiray maaqaan garow waa yaqaanaan dadkay daawanaysa ila tahay nabad iyo caano meel la dhaho baa ku wada kulanay waxaa jirta hadiyad saad ba horta qaali u ahayd maasha allah qof dee kugu qaaliyaba wax qaaliya la siiyaa adigu saacado iyo barafuunay waxyaalahaas
baa jirta. Marka waxaa dhacday habeenkaas baa meesha ugu geeyey, waa la kulmay anoo meesha joogaba. waxaa ku dhahay anigu dee qof ma samro, waxaa la dhahay qof wax jecel ma samro. meesha markaa ugu geeyey ma ogeyn de may waan waxaan ku dhahay mid baa kaa codsanaya inaan kula kulmaa rabaa baa iri. saa wuxuu yidhi haye waay waa ku ogolahay. xagee ku kulanaa warsiri nabadii caanay weymow. isagoo meel fadhiya baa u tegey. meeshii baa imaaday, meeshaasa wada galnay anoo meel saa kuraas u wada fadhina baa adigu xoogaa waxaan anigu dadka waxaan ahay markuu qofka uu la joogo ma hadli karo, laakiin markuu iga maqan waa nafisi karaa taleefanka aan ku jiro. adi waxaan sameeyey wiilka oohin baa meesha la fadhiistay. wuxuu igu dhahay maxaa u oynaysaa dee anigu mataqaanaa nolol ma samaysan karno, isma guursan karno, ismaba geynaba goobkuu leeyahayba. waxa dhacday ani waxaan ku dhahay si walba ha noqoto baa ku dhahay, laakiin dee maba samrin bay laa hadda anigu waa taaganahay. wiilka lugaha qabsada, meel walbaa qabsaday, wax walbaan u sameeyey waa kari waayey. adigu markii ugu dambeysay wuxuu igu dhahay hal mid baa sameynaynaa, familkeyga iyagoo ogeyn baa wada soconaynaa, tiktokan micnaha waa ka dhacaynaa, fiyo islama soo dhiganayno. okay baa waxaan ku dhahay mid baa sameynaynaa. haye baa ku dhahay anigu dee qofkan inuu iga fogaado ma rabo, laakiin asaga wuu rabaa inuu tago oo dee kuma jirto xanuun maba dareemaya hadduu iga tago, farxad mooyaane. haye baan ku dhahay isbuuc baa isla soconay. anagoo isbuuc isla socono sidii u wada socona buu wuxuu bilaabay inuu naago leefka uga dhex suuroodo, naago adigu fiyoolad waxaasuu bilaabay. anu xanuun bay igu tahay, cod baa u duubay. waxaan ku waray maxaa way dhaqanka noocaasa aad magaalada kula jirta waa ku dhahay, mise anigu waabadii iloodayba. hadallo wuxuu igu dhahay dee hadda ma waxaa filanaysaa in ani adiga nololna dhex mari karto. haa war anigu niyadaada unbaa dejinayaa mooyaane wax wejiga kaama lihi, oo dee waqtiga unbaa adiga unbaa qalbigaaga kuu dhisaya mooyaane saa doonaa u baashaalaya weji iyo waxbaba kaama lihiba, waqtigeygaan kaa qaato. codkii leeg baa u saaray, waa ka baxay, waa ka dhacay. markaan ka dhacay isagoo sidii ula yaaban maxay iiga aamusan tahay gabadha oo wiilka taladiisii qaatay baa waxa dhacday maalin anoo leef ku jira buu soo qabtay. markaas wuxuu igu dhahay adigu leefka dhexdiisa iga raaligeliyo, waa isku soo laabanay. waxaa jirta waxyaalo badan oo aniga asagana dhex maray laakiin halkan aan ka sheegi karin oo nolosheedu burburiyey. waxaa jirta waxyaalahaas aniga asaga intiisa nolosheena baabi'in baa waxaan ku iraahday. wuxuu igu dhahay xamar baa aadaynaa, micnaha muqdisho aadaynaa, muqdisho way ka nolol fiican tahay. waa tegaynaa aniga adigaba. haye baa ku dhahay haddaan waxaan ku iraahdaa dee haddaan anigu fiiri hadda muqdisho haddaan tago dad aniga iga horeeya, ilmaadeerada baa iga horeeya, way soo dhaweynayaan oo ma garanaysaa aniga adiguna dee familku way isku diidan yihiin oo sawiro xitaa fiyo aan leenahay tiktok islama yaalo, inaan kala dhacno bay dadku noo qabaan. maxaa sameynaa? wuxuu igu dhahay xamar iga hortago waa kaa daba imaanayaa.